يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان goordhowna ilmihii baa igu xumaaday oo dhib buu i dhibay naftiibuu iike adigii baaba habaaray waxaa laga yaabaa maalintuu ilaahay keenaba inay habaarayso maalin ma jirto ama habeen ma jiro ilaa habaar midh ama laba ama saddex baa ku dhacaya maxaana la rabaa ilmahaasi ilmo fiican oo wanaagsan oo ku maqlaya oo ku adeecaya oo tarbiyad fiican le inuu noqdo haddana inagii baa habaarayna isma qabanayso qodobka labaad ee ka qeyb qaadan kara waxyaabaha ugu waaweynna ka mid ah inay naga caawiso tarbiyadda awlaadeena waa ducada faraha badan ee la rabo awlaadda in loo duceeyo intaan caruurba dhalan inuu qofku caruurta u iman doonto ilaahay uu siin doono uu sii duceeyo caruurtaasi markay dhashaan kadibna ducada uu u farabadiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala u baryo inuu islaaxiyo oo uu wanaajiyo tacaynkaas sidaan waxaan ka qaadanaynaa qur-aankeena kariimka ah oo ducada nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam qur-aanku inoo sheegay waxaa ka mid ah inuu ku ducaystay rabbi hablii min asaalixiin ilaahay waxaad ii hibaysaa oo aada isiisaa qaar saalixiinta ka mid ah qaar wanaagsan oo saalixiina oo suuban ilaahayow isii oo ii hibe wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanayaa waa ubad iyo dhuriyo iyo ubad fiican oo saalixiina ma aha ilaahay ilma in la weydiisto ilaahay ubad sii ilaahayow ilmaysii ilaahayow wiil isii ilaahayow gabadh isii intaasun maaha waa qaar fiican oo wanaagsan oo saalixiina in lagu ducaysto rabbi hablii min asaalixiin waa intayna iman ka horba baad kusii ducaysanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala awlaadda uu ku siin doono qaar fiican oo wanaagsan inuu kaaga yeelo waxaa ka mid ah ducooyinka qur-aanku inoo tilmaamay ducada nebi ibraahim calayhi salaam sidoo kale muxuu ku ducaystay wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam ilaahayow aniga iyo awlaadaydaba naga badbaadi asnaamta inaanu caabudno inaanu sanam caabudno oo gaalo aanu noqono mushrikiin ah oo ilaahay sokadii cid kala caabudaya ilaahayow naga badbaadi isagoo nebi ibraahima calayhi salaatu wasalaam oo nebi ilaahay ah ayaa haddana wuxuu ku ducaysanayaa ilaahay inuu ka badbaadiyo isaga inuu sanam caabudo inuu gaaloobo ciyaadan billah awlaaddiisiina wuu u ducaynaya ilaahay awlaadayda ka badbaadi inay asnaam caabudaan ay gaaloobaan waa duco qaaliya waa duco weyn oo loo baahan yahay inuu qofku ku ducaysto isagu awlaadana uu ugu duceeyo ilan qalbiga ilaahay baa subxaana wa tacaala haya imsaa toosnaa oo wanaagsanaa laakiin gadaal ka xumaaday way fara badan yihiin imsaa muslimiin ahaa oo islaam ku dhashay laakiin gadaal ka gaaloobay way fara badan yihiin waxaa ka mid ah ducooyinka nebi ibraahim calayhi salaam rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati ilaahayow iga yeel mid salaada ooga oo ilaaliya aniga iyo ubadkayga duriyadayda ilaahayow qaar salaada ilaaliya naga yeel ayuu ku ducaysanayay rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummata muslimata lak waa nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi ismaaciil ilaahay waxaad naga yeeshaa qaar adiga kuu hogaansan waxaad ka yeeshaa tafiirtayada ummad muslimiina waxa weeyaan ka yeel nebi zakariya calayhi salaam ducooyinkiisii maxaa ka mid ahaa rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba ilaahayow duriyo iyo awlaad wanaagsan ii hibe waa intayna iman ka hor addoomaha ilaahay ee wan wanaagsan ducooyinkooda waxaa ka mid ah rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaahay waxaad noo hibaysaa oo aadna siisaa dumar wanaagsan iyo duriyo iyo ubad wanaagsan oo indhaha iyaga ay ku
marka ducada faraha badan leh awlaadu intayna iman ka hor lagu sii ducaysanayo ilaahay markuu kugu arsaaqo kadibna aad kusii ducaysanayso aad joogteynayso waxay ka qayb qaadanaysaa awlaadaas inay awlaad fiican noqdaan awlaad ducadaba lagu sii bilaabay intayna iman ka hor oo ilaahay loo bariyay subxaana wa tacaala markay yimaadeen kadibna ducadii lasii badiyey khayr iyo wanaag badan baa laga rajeynaya joogsadaan maadaama ducada waalidku ilmihiisa uu u duceeyaa mustajaabo ay too la aqbalo siduu rasuulku inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in ducadaa la farabadiyo laakiin inagu maxaynu samaynaa inagu waxaan laga yaabaa qaar badan oo inaga mid ahi ubadka iyo awlaadda inay habaaraan xaggay uga ducayn lahaayeen haddaynu habaarnana habaarkeena inuu dhacaa laga yaabaa oo la aqbalo haddii loo duceeyana ducada waxaa laynagu dhiirigelinayo in ubadkii loo sameeyo markay waxoogaa ayna dhibaan ama aynagu qayliyaan ama aynagu buuqaan ama aynagu ciyaaraan ama guriga ay biiyaan waxyaabihii aada hagaajisay ama hooyadu ay nidaamisay nadaafadaysay markay caruurtii ka biiyaan biyo ku daadiyaan isdhex dhigaan habaar baa loo kiishaya balaaya kugu dhacday yaa cudur kugu dhac haamadu ku go-day inkaar kugu dhacday way wada saawn lama kala goynayaba goodhowna ilmihiibaa igu xumaaday oo dhib uu idhibay naftiibuu iike adigii baaba habaaray waxaa laga yaabaa maalintuu ilaahay keenaba inay habaarayso maalin ma jirto ama habeen ma jiro ilaa habaar midh ama laba ama saddex baa ku dhacaya maxaana la rabaa ilmahaasi ilmo fiican oo wanaagsan oo ku maqlaya oo ku adeecaya oo tarbiyad fiican le inuu noqdo haddana inagiibaa habaarayna isma qabanayso oo in loo duceeyo haddaad wuxuun odhanaysa markaad xanaaqdo ilmihii aad ku xanaaqdo ilaahay kusoo hadeedhe allaa yahdiik ilaahay ha ku hagaajiyo kolley wuxuun baad odhan lahayd ma og tahay waxaad odhan lahayd xilligan aad xanaaqsan tahay hadal fiican oo ducaa ka dhig haddii kale habaarka caynkaasiya la habaarayo oo laga qoomamoonaya wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayr wa kana alinsaanu cajuula marka waxyaabaha caruurteena tarbiyadooda fiican ka qeyb qaadanaya iyo hagaagooda waxaa waxyaabaha ugu waaweyn ka mid ah in loo duceeyo oo ducada la farabadiyo nacam